إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكت المامية كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نفدا ما انتيد قريبا يدد من إلهي سبحانه وتعالى ونولشان aynu ku jirno hadday qaraadh iyo hadday macaantay hadday adagtay iyo hadday fududahay hadday dhab kuula muuqato iyo hadday dheeldheel kuula muuqataba ilaahay wuxuu leeyahay geeraa ka dambaysa. waxaanan idinku itixaamayaa baa ilaahay leeyahay bishari waalkhayr, sharka iyo khayrka labadaba waa idinku itixaamayaa baa alla leeyahay subxaanahu wa tacaala. khayr waa lagugu itixaami oo nimciyo badhaadha lagugu itixaamay sidii nebi sulaymaanba loogu itixaamay oo weliba imtixaanada qaarkood innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbi uu tilmaamayey ilaa uu dalbaday mid ka weyn imtixaan ka weynina la geliyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala geliyo uu ku guulaystay dabeetana nicma alcabdu innahu awaaba la ku sifeeyey. dhib iyo imtixaan baa lagugu itixaami sida ambiyo kaloo badan qur-aanka ilaahay kaga warramay, qaar la dilay, qaar bukooday, qaar la xidhay, qaar la caymadiyey, qaar dalka laga saaray, qaar dab lagu riday, mashaakil oo dhan baa ilaahay ka warramay. haddaba mushkilaadkan iyo tasbiixda aan cinwaanka ka dhigtay maxaa ka dhexeeya? waxaa ka dhexeeya insaanku sidiisaba dhibta ilaahay subxaanaه wa tacaala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. innagaa layna faray inaynu dadaallo, laakiin markaynu dadaalkana nimaadno waxaa layna faray inaynu ilaahay tala saaranno. waxaa kaloo intaa ka dambaysa qofku wuxuu mas-uulka yahay intii awooddiisa ah, laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha. haddana adigoo aan mas-uuliyadba gabin ayaad cadhogami waayi markaad aragto muslim cunaan la hayo iyo dad dhanoo muslimiinoo la baabi'iyey, dumar iyo carruur la tirtiray, dad gawaadhi la dulmariyey, qaar dayurada lagu garaacay, qaar kaarayaa laga dulboodsiiyey, qaar naabaa lagu riday. wax kasta markaad aragto naftu diiqad bay dareemaysaa yaa cidhiidhi haddii muslimnimo inuun kugu hadhsantay. qofku inuu psychologically u dhiboodaana waa dhibabka ka mid ah, laakiin ilaahay subxaanaه wa tacaala tiriyaaq iyo dawow inaga siiyey laysku daweeyo dadkase in badan ay hilmaameen. ilaahay nebiyullaahi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam markii la beeniyey ee rabbigii wax laga sheegay ee isaga lagu jeesjeesay ee dhib oo dhan loo geystay, ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu soo dejiyey dawo qur-aanka ku taalla. qisas qur-aanka ku yaallana ilaahay waa inooga warramay oo iyaguna nafsu dawaa ah, tiryaaqii lagu dawaynayey cidhiidhigaa iyo dhibtaasi ah. ilaahay nebiyullaahi moxamed wuxuu tilmaamay فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. هذا حق الشيخ بالليلي أنا كافلان كون ليلية كو إلهي غيرك عابد يدين لا أنت وبحي، لكن هدنا إلهي وحط المامي isagu intii saarayd markii la yidhi sheeg waxa kaloo loo tilmaamay dhib kale uu dareemaya haddana inay jirto. walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk baa ilaahay yidhi, waxaanu ognahay baa ilaahay yidhi in laabtu ku cidhiidhiyoomayso oosaanay laabtu u cidhiidhiyoobin iyadoo dawi lqurba iyo intii ugu dhoweyd ay tahay inta looga taaglaayay. maxaad yeeli lahayd haddii dadka qofka kuugu dhowi intuu ku dabagalo halkaad istaagtaba u yidhaahdaa waa beenti kan yarana adeer u ah? nebi moxamed adeerkii rumaa daba socday abilahab oo halkuu istaagaba leh waa beentii wuxuu sheegaya waxba kama jiraan.
ما هين لبينيو قول النبي عليه الصلاة والسلام أن لا رميسن حتى وحل لو ديدي إنه وحشيكي كره وحل قارسيه حد بلشده لغا دادعيه إنه والين يحي يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون يدهدان طفيل بن عمر وينو قرين إنه دقا سوى فريستي isagoo laga dhaadhiciyay inuu ninkani waalaya ma wax sixro damaad waynu garanayna inuu nabigaba u yimo yiri war waxa la yiri xogaa waaliya ku haysaan ku daweeyo riixdan tufaayo waxbaan akhriyay cidhiidhiga uu nabigu dareemay alayhi salaatu wasalaam intuu leegi dhanka kale ilaahay oo la caasiyo sanama la caabudayo rabbus samaawaati wal ardi laga gaaloobayana uu taagan yahay la'allaka baakhi'u nafsak ilaahay ku leeyay naftaadaad cidhiidhi gelinaysa ama halaagaysa inay rumayn waayaan alla subxaanahu wa tacaala daraaddeed haddaba ilaahay daawuu siiyey waxaasoo xanuuna laabtiisa kaga maydho walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu yidhi fasabbix bixamdi rabbik wakun min assaajidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixsaa la yidhi adigoo ku dheehaya ama se ku maraya mahadnaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala التصبيح معناه في اللغة التنزيه أو الإبعاد بين هذا وفقين أدو إلهي عيب يحمو كديرين يبال لي سبحانه وتعالى إلهي تصبيح دو وإلهي وحي وعنطمن وحي النقائسة وحي اللي دشي عن ربي صفات كساهين وإلهي أتكن زهده حمدنا وعكس كذا وأمانتي يا إلهي أفعاشي سي أسمادي سونكسنا أدقم محضيصه وأتكو أمانته هو الثناء إذن ونفي إثبات وذا الصعدة وسلبي إيجاب وإلهي سبحانه وتعالى هداد حمك ديريسه وناقنا أظن نسبيسه وأتكا كور ديدبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى وحي داوك آغتها يضيق الصدرك وهيستا الله بعديدك وكن من الساجدين فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فصبح وأدبار السجود إلهي وحنا بقيسة كويري الصبر وحي كوهد ليامكو صبر وصبح بحمد ربكنا إلهي سبحانه وتعالى وتصبيح صو بل إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآنك كبري النبي عليه الصلاة والسلام يا نقبا رضا النفس إيا التسبيح دوين وذا الصعدان في سورة طه إلهي محوليه فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى أي كي ترضى بإله إلهي سبحانه وتعالى تصبيح لك عليه أدقوا كمر يا إلهي حمدك قورمات لا يمنسه قبل طلوع الشمس أي قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخره انت بالتصبيح لك علي بالليل واقو انتانو بريين تصبيح سو قبلكو انتانو دعين تصبيح سو هبينك برتن كيسة تصبيح سو مال انت اللي بدأ دعال تصبيح سو تصبيح ذا إيا حمدك هداد ودبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى محاد قاريسة لعلك ترضى أي كي ترضى مفسرين تبرد بهالكم كفسره صلوات كان لو جيدا لكن علماء وحين والصلاة هي التصبيح صلاة لفت هذا تصبيحة في بيوت نادنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو ولا صلب إلى كتل المام يصبح دان وحي مفسرين تذكر رعسيين إن يتهي محي صلاة دي أمسه دي الصلاة دا وحيابه وقوين اللي قبطاه وقفك مصلي وسمية وتصبيحية تحميد والنبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن الحكم ننكي صلاة دا كل حد لي دبيتنا صحابته ماكتي ومركي دم النبي قوي يرى وحبره يوحكو يري إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
إنما هو التصبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولذلك في علماء waxay dhahdaan 7 meelood oo salaada kamida la tasbiixsadaa. salaada iftitaaxeedu waa tasbiix. سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وافتتاحا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وافتتاح لبعض. يعني استفتاح الغصة هي صلاة وتكبيرا وتصبيح إلهي سبحانه وتعالى لولي ماده. ركوع هي السجود ندى وتصبيح. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ذي يعني إمسا نوع تصبيح صار مركا للركوع سين مركا للركوع سين كذلك. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك. يعني إمسا نوع صار ركوع هي السجود هي نوع تصبيح هي تحميد. haddaad qur'aan akhrido oo aad aayad tasbiixa soo martana waa la tasbiixsadaa intaad salaada ku jirto. qofkaan faatixada garanayna muxuu samaynayaa isna tasbiixsaa la yidhi makaanulfaatixa iyana waa tasbiix. markaad salaada adbaara sujuudna ama markaad salaada ka baxdana iyana tasbiixsaa la yidhi oo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar waa innagaan idhaahna markaynu salaadaha ka baxno. inta soo hadhay inteeda badanina waa taxmiid waa xamdala. faatixada lagu bilaabo alxamduya rukuucdo xamda la socoto samica allahu liman xamido xamdala ah sujuudo xamdala la socoto inta kalena waa taxmiid. yani salaadu waa subxaana allahi wabixamdihi ficla. walidalik baa nebiga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa waxa cidhiidhi haysta wuxuu kaga baxayaa inay tahay فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وحا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كينوغا ورميا نبي أنبياء إلهي كمده وعديدي قالي مال أدك دعي وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبي بدك دعي وبدأ قرآن لو دينا كلون لقي وعلال كلون كسيجرة انتو بدقر قومي هداد بيها مسكر حسابين يسوي لي الرجات غبطايه كلون علوشي كجرة. أي إلهي كورمي سبحانه وتعالى ماشا محاكا عديدي بدن محاكا ورور بدن inaad bad ku dhacdo oo geed la cuskada lahayn oo haddana nimiri ku liqo waad calool nimiri gasho meesha madow markaa galo ilaahay wuxuu leeyahay fanaada fi dhulumaat mugdiyada dhexdoodu ka dhawaaqay muxuu ku dhawaaqay أنت ومفسردي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعقود واقع لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلهي وادقا كليل وعابده سبحانك حمك وفنان تاد عيبك فقان تابو لي وحط الماما إياه أعماشي سسمية وحن كرت بمينين أنا إلهي مرنا بيسق الظلمين إلهي لست بظلام للعبيد بوليه بل إني كنت من الظالمين. إلهي سبحانه وتعالى دبتنا في سورة الصاد صافات صاد إلهي وحين أوشاق إنه كبد بادي سببت درادي فلولا أنه كان من المصبحين بإلهي فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هدي أنو كمد أهان لهين بإلهي لي قوة تصبيح صدا مفسرين تبدو وحي ليين قوة تصبيح صدا وحلوغة شهدا في بطن الحوت كوي قوة تصبيح صدي. مفسرين تبدو وحي ليين
أيام كان في الرخاء مركو برواقة كتشري كان يذكر الله يعني في الرخاء دبتنا في الشدة إلهي حصي سبحانه وتعالى لبدا تفسير بنواصح هديانو كم دهان لهين با إلهي ليكوى تصبيح صدا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحكوشري لها هالكاسي إلى ينت لغا صبحين يبا رب إليه سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة ترياقة أما داود النبطة إعديني قلابادي عرض لغا قبحه يعيلك لغا قبحه عموما وإلهي ذكره مركهوري ألا بذكر الله تطمئن القلوب waxaa quraanku sii tilmaamay markaasi adkaarta qaar kamida dhikriga ilaahay sii tilmaamaya way tasbiixda mararka qaar ku wada culimadu ku fasiraan adhikru kullu ina tasbiix yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamaya markaasi daawo inuu bal cagsigana waa ka daawo aadanuhu markuu xoog iyo xoolo iyo wax helana ina kibir ku qaada kibirkana waa ka daawo markaa waxaa la yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu nasriga iyo guusha iyo nimcada helayna iyada uun laazim baa lagu yidhi idaa jaa'a nasru llahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaaja markaad aragto ilaahay guushiisu inay kuu timi iyo furashadu ay kuu timi oo aad aragto dadkoo diinta soo gelaya maxay samee baa ilaahay yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu aadanuhu markay guulaystaan way kibraan dabeetana waxay dhahaan waa maalintii xorriyadda waa maalinta xoogga la soo bandhigo waa maalinta dadkoo dham isugu yimaado waa maalinta madaxdu khudbadayso madaxda hadashoo dhammina maxay ku hadashaa waa guulaysanay waa xoogaysanay waa iyagaas sheega maalmaha xorriyadaha iyo maalmaha istiqlaalka iyo maalmaha la sheegoo dhan aadanuhu isagaas sheega ilaahay setaayna ma amrin ilaahay wuxuu ina amray haddaad xusaysaan markaad dareentid nicmada alle subxaanahu wa tacaala ee aad guulaysato ee cadowgaa kaa dhaco ilaahay kaa reebo ee mabda'aagu uu faafo ee dadku ra'yigaaga qaatee diinta la soo galo taana abaalmarkeedi iyo shukrigeedu waxa weeyaan baa ilaahay leeyahay fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru maantaana ilaahay unbaa la sheegaa maanta dhibta lagu jirana ilaahay unbaa la xusaayoo la sheegaa maanta badhaadhaha lagu jirana ilaahay unbaa la xusaayoo la sheegaa tajaddud الnicma waa la sujuudaa waa la shukr ilaahay unbaa la xusaa sujuudu waa nooc min ashukr waa nooc min atasbiix qofku markuu sujuudo muxuu yidhaahdaa subxaana allah buu daa yidhaahdaa markaad sujuuddo soo taa lama yidhaahdo subxaana rabbiya alaclaa baa la yidhaahdaa nicamka markaad hesho fooddaa dhulka la dhigaa idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala caafimaadka aadanuhu inuu ku jiro ilaahay sheegsheegiisa iyo ammaantiisa inuu ku jiro caafimaadka bini aadamku haddii cidhiidhi aad la kulanto cidhiidhigu ha ahaada ciil bini aadamku baday ama ha noqdo masaa'ib kaleoo kugu habsatay sida taa dunuubtuu ka dhalatay iyo acmaashaad samayso sida mushkilaadka qadarta la kulantay nabi yuunus oo kale ama nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ay badeen qurayshi labadaba waxa la yidhi fasabbix bixamdi rabbik ilaahay u tasbiixso subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba waxaad ogaataa inaynu ku dhex nool lahay kown dhan oo ilaahay u tasbiixsanaya kown dhan oo dhawaqa ka yeedhaya uu yahay tasbiix dhawaqa qudhe khilaafsani waa ka aadanaha iyo jinka sadaradeed baa ilaahay wuxuu leeyahay wayusabbixu الracdu bixamdih onkadkaad maqlaysaan ilaahay buu u tasbiixsanayaa isagoo ilaahay ku dheehaya xamdiga rabbi subxaanaه wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya wasakharna maca daawuud aljibaala yusabbixna waطayr ilaahay wuxuu inooga warramayaa nebi daawuud oo shimbiro iyo buuro la tasbiixsanayeen bale qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa alkaa'inaatu kullaha inay tasbiixsanayaan waxa jooga oo dham inay tasbiixsanayaan alam tara wala ilaahay wuxuu leeyahay tusabixu lahu الsamaawaatu الsabcu wاlardu waman fiihin wain min shayin laa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum
إنه كان حليما غفورا samaawaadka toddobada iyo dhulka iyo waman fiihinna baa ilaahay yidhi waa universka oo dhan kownka dhammaantii wain min shayin baa ilahay yidhi waxbaba shay ma jiro ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum dhammaantood ilaahay bay u tasbiixsanayaan ee idinkuun baan fahmaynin siday u tasbiixsanayaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay kaa'in kastaaba ama jiro kastaaba jiritaan kastaaba qaab gaaroo isagu u tasbiixsado ilaahay uula xidhiidha inuu leeyahay alam tara anna allaha yusabbixu lahu man fi الsamaawaati wاlardi wاlطayru saafaatin kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimun bima yafcaluun miyaanad arkaynin baa ilaahay leeyahy miyaad ogayn in cirka iyo dhulka waxa joogaaba ilaahay u tasbiixsanayaan iyo shimbirahan baalasha kala fidinaya inay rabbigood u tasbiixsanayaan ilaahay baa wuxuu ogyahay kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimun bima yafcaluun idan ayuha alaxiba bale mararka qaarkood ayaa ilaahayna maqashiiyaa kaa'inaadka kale tasbiixdooda waa ka xadiidka bukhaari ku yaalla ibnu mascuud uu leeyahy walaqad kunnaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kal nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo lala fadhiyo cunno la cunayo ayuu ibnu mascuud wuxuu leeyahy cunnadii aannu cunaynay baannu maqlayno subxaanallaada leh iyadoo la cunayay tasbiixsanaysay buu leeyahy cunnadu waa min mucjizaati rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam bal abu dari alkhifaariy radia allahu canhu waardaa baa wuxuu leeyahy xadiidka طabraani warinaya sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamay ibnu اlxajar alcasqalaani inuu leeyahy rijaalkiisa o dhan waa hiqaat innii shaahidun cinda الnabiyi salى اllahu عalayh waalih wasalam fii xalqa goob baan la fadhiyey buu yidhi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam uu gacanta ku haya buu yidhi xasa qururux buu gacanta nebigu ku hayay calayhi الsalaatu wasalaam qururuxii gacanta nebiga ku jiray ayaa tasbiixsanayay buu yidhi dadka meesha fadhiya waxaa ka mida buu leeyahy abubakar iyo cumar iyo cali iyo cuhmaan baa ka mida buu tilmaamaya dadkoo dhammi way maqlayeen qururuxaasi tasbiixsanaya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qururuxii gacantiisa ku jiray dhagxantii yaryareed ee gacantiisa ku jirtay oo subxaana allah leh ayuu abibakar u dhiibay abibakar markii loo dhiibayna tasbiixdii way socotay sidii bay u tasbiixsadeen dabeetana abibakar nebigu ku soo celiyay iyadoo tasbiixsanaysa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u dhiibay haddana cumarna gacantiisa markii loo dhiibay way tasbiixsanaysa abidar wuxuu mar kasta tilmaamayaa dhammaantayna tasbiixdaa weli waa maqlaynaa yacni tii horeo qura ma hataanu maqlaynay buu leeyahay markay abibakar gacantiisa ku tasbiixsanaysana waa maqlaynaa markay cumar ku tasbiixsanaysa gacantiisana waa maqlaynaa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markii lagu soo celiyey ayuu cuhmaan iyo cali u dhiibay labadabana gacantooda ayay ku tasbiixsatay uma dafacahunna ilaynaa buu yidhi annagaa markii dambenana loo dhiibay falam yusabbixna maca axadin mina buu yidhi qolyahayagii kale midna lamay tasbiixsanin nebi maxamed iyo afartaa saxaabi waa meelahay culammada badhay ahlu sunnaha qaarkood baa u daliishada masaa'ilka khilaafada xadiidka nin kastoo uu ka durugsan yahay afartaa saxaabi iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam sacabkooda ayuu ku wada tasbiixsaday idan makhluuqaadka qaar baynu tasbiixdooda maqli karnaa oo ilaahay markuu doono ina maqashiiyaa bale abu hurayra xadiidka saxiixaynka ku yaalla uu warinaya waa kale nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ka warramay nebiyada ka mid oo qudhaanjo qaniintay oo dabeetana amray buulkii qudhaanjada iyo meeshoo dhan in la gubo oo ilaahay kuu waxyooday markaasi ma hal qudhaanjaa ku qaniintay dabeetana waxaad halaagtay umma min alumami tusabbix ummad umamka ilaahay ka midoo tasbiixsanaysa miyaad halaagtay yacni lowlaa waaxida halla waaxida baa la yidhi xabadda ku qaniintuun maa dishid maxaad ummaddan oo dhan ayuha alaxiba tasbiixdan iyo taxmiidan daraaddeed ayaa tasbiixda 7 suuradood oo qur-aanka ka mid ah ku bilaabma
siyaqa ficil amr iyo ficil maadi iyo ficil mudaaric iyo masder iyo intabana waa ugu soo arooreen. ilaahay subxaanaه wa tacaala fii suurati اlxashr iyo saf labada aayadood ugu horreeya dee waa isku mid. sabaxa lilaahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi wahuwa alcaziizu اlxakiim ayay suurat اlxashrina ku bilaabmantaa, suuratu safna ku bilaabantaa. suuratu اlxadiidna ma fi اlardi gunba walardi sabaxa lilaahi ma fi الsamaawaati walardi wahuwa alcaziizu اlxakiim. suuratu jumca yusabixu lilaahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi اlmaliki اlquduusi اlcaziizi اlxakiim. suuratu tagaabun yusabixu lilaahi ma fi الsamaawaati wma fi اlard lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir. suuratu laclana iyadoo ficil amara sabbix isma rabbika lacla. suuratu lisraana iyadoo masdera subxaana aladii asraa bicabdihi leyla. 7 suuradood oo qur-aanka ka mid ah ayaa ilaahay tasbiixda inoogu bilaabay si laynoo dareensiiyo muhimaddeeda. 5 ka midana xamdalada laynoogu bilaabay de alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin iyo ancaam alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati wاlard iyo kahf alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi اlkitaab iyo saba iyo maxay faatir. 5 suuradood oo ka mid ah qur-aankana xamdala lagu bilaabay. inta meelooda kale ay ku soo aroortayna tiro ma leh. idan ayuha alaxiba, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray oo inoo tilmaamay tasbiixda iyo weynideeda. bale ilaahay ambiyadiisuu inooga warramaya qur-aanka oo nebi ka midi ilaahay uu tilmaamaya wadiifatu nubuwa inay ka mid tahayba tasbiixda, iyo waxa uu u dalbaday nebi labaad in lagu kaalmeeyana inay ka mid tahay inay tasbiixsadaan. wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asri waashriku fii amri. muxuu u dalbaday waxaasoo dhan? kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira buu leeyay. ilaahya waxaan kaa dalbayaa buu leeyay haaruunna inaad nebi iiga dhigto, walaalkay haaruun inaad nebi iiga dhigto oo igu xoojisid oo arrinka ila wadaajisid. waayo kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira. markay kaalmada dalbadeenne fircoon loo dirayna ilaahay muxuu ku yidhi? idhabaa ilaa fircawna innahu طagaa. maxaa fircoon markuu tegayay la yidhi? walaa taniyaa fii dikri baa ilaahay yidhi. fircoonkaa xoogga badan leh ee askar iyo ciidan iyo wax kastaba haysta u taga baa ilaahay yidhi. zaadkiinnu laakiin waxa weeyaan walaa taniyaa fii dikri, ha ka noogin aniga xuskayga. subxaana allahi wabixamdihi iyo laa ilaaha illa allah iyo wixii la mida kuwaa ha ka noogina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. ayuha alaxiba, ilaahay nebi yuunus baynu soo sheeganay uu kaga warramay. nebiyullaahi muusa ilaahay ka warramaya markii nimcadu u cusboonaatay, rabbigii markuu weyddiistay intuu jeclaaday inuu arko. ilaahu aan ku arka la yidhi. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi arki kari maysee bal hadda buurtan eeg. hadday buurtu taagnaato waa suurtagaladna inaad i aragto. buurtii baa dhalaashay. falammaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk. markuu miiraabay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay subxaanak tubtu ilayk. ilaahayow adigaa ceeb ka dheer, ceeb iyo xumaadigaa ka dheer, waa kuu toobad keenay buu leeyahy. wa ana awalu lmu'miniin baanan ahay ka koowaad ee ku rumeeya inaan adduunka laguga arki karin. nebiyullaahi zakariya markuu dalbaday inuu aayad helo, ilaahi buu barye cajab qabta. karaamaadkii maryan markuu arkay ayuu barye cajab qabta ilaahay weyddiistay. rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala ra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya. ilaahay buu barye cajab la barye. baryadu baryayaa waa maxay? waxaan dunida ka suurtagal ahayn buu ilaahay u sheeganaya, laakiin wuxuu leeyahay adiga agtaada waa ka suurtagal. ilaahu aniga madaxu way caddaaday oo waa gaboobay oo islaantaydii waa gabowday oo wax ma dhalayso. markii horena caaqir bay ahayd, da'ina waa u raacda. iyadoo yaroo caaqira waa laga yaabaa inaad tidhaahdo mala haddii uun meel la taabto way iska dhali doontaa, laakiin xadkiiba waa dhaaftay baa rabbigu ayuu ku tilmaamayaa nebigu.
sidaa markuu sheegtay ilaahay wuxuu yidhi waa ku siiyey ilaahu aayadii yeel buu yidhi waxaa la yidhi aayaddu waxa weeyaan 3 maalmood baad aamusnaanaysaa laakiin rabbigaa waad u tasbiixsanaysaa waad xusaysaa aayaddu waa taas baa la yidhi qaala aayatuka anlaa tukallima annaasa 3 أyaamin ilaa ramza واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار وصبح بالعشي والإبكار إلهي سبحانه وتعالى عيسى كورمي نبي الله عيسى دبتنا وحل يدي عيسى وماذا يريدتك أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلهي بقول لقينا يوحور لها قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد بوح والرمية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل بل قلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحتى هذا واكن جدكيو isagaanan dadka ugu yeedhaya raacayaana aniga iyo intii raacdayba wa subxaana allah wamaa ana min almushrikiin ku dhawaaq baa la leeyahy ilaahay wuxuu inooga warramayaa makhluuqaadka agtiisa ka dhadhow ee malaa'igta la yidhaha iyaga shaqadoodaba inay tihi wainnaa lanaxnu almusabbixuun bay leeyihin wainnaa lanaxnu almusabbixuun jumla ismiya la adkeeyey أدوات التوكيد لا يسوق جيي أي كشيء جانا ملائكته شقدوا بين كاتي وإنا لنحن المصبحون إلهنا وفريا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون يقولون واشيكتين ربنا واشيك ربنا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون كلا قوم مله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلهي وحين ورمى يا جنة دتك اللقيانة إيانا شقدود ويني كنطي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده أي إيانا شقدود أبا إلهي سبحانه وتعالى أيها الأحبة هذه قرآنك سيدا وبالبلاديي انت النصوص كتجانا سوق هذا يكبر انت عن شيء وهي قربان السلوان قري كريواي قرآنك انت قصار ارتي تسبيح هي تحميد ترمله بي أبدنتي إلهي سبحانه وتعالى ينفريه قور والبا وقت كستو آدنا وشيغي كراون قرآنك waxa ku taala iyadoo la leeyahay tasbiixsada subax habeen saqar dhaxay waa bari xidiga dhacwa goor kastaba ilaahay wuxuu leeyahay tasbiixsada idan tasbiixdu waxay ka mid tahay wardiga marka hore mutlaqa bay ka mid subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi سياقات وتربى أن السنة النبي عليه الصلاة والسلام بوصارت قاببك الله تصبيح سنة أحاديث تهداد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام جذر الصبح كصاررتي أما حمد كصاررتي أدبي وتربى دينينا تلمامي النوعيات كتصبيح ذا الله لي ماده دي صلاة الدمان تدنا صبح باب الليل هذا ولذلك بعلماء وحنا صبحة والضحى أما وكعمر لقى شيئين لو كنت مصبحا لا أتممت علماء بدبايد هذا الصبح هذا انت بدنت السنة الله هذا لكن مفسرين بدن باب حقبان مع التكلين الله هذا قورما وقتي والبوالة تسبيح حالتك استاذ كتشرته مركاد يابتا سبحان الله الله هذا marka dhibi ku qabsata subhanallahi wa bihamdihi la yiraahdo marka nimcaad hesho ama ay ku cusboonaato ayaa la yiraahdo farskaaga markaad fuulaysaa la yiraahdo ama daabadaada gaarigaaga subhanalladhi sakhara lana hada wama kunna lahu muqrinin
nimco cusub markaad hesho sidii nebi muuse la yidhaahdaa subxaanak. markaad ducaysanaysaa la yidhaahdaa fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu. markaad dembiga qiranaysaa la yidhaahdaa. qisadii suuratu nuun ku taallay asxaabu اljanna qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun. idan xilli kasta hadday dhibi ku haysato, hadday nimco ku haysato, haddaad yaaban tahay, haddaad wax kasta oo duruufaadka ka mida waa la tasbiixsadaa. tasbiixdaasi midhahaad ka goosanaysaana koowa inaad dembi dhaaf hesho. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim fii yowmin 100 mara gufirat dunuubuhu wain kaanat midla zabad اlbaxr. qofka yidhaahda maalin 100 jeer subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim dembigiisaa la dhaafaa wain kaanat midla zabad اlbaxr. xoorka badda oo kale hadday mawjadda badda hadday leeg tahay waa la dhaafaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. dembigaagaa lagu dhaafayaa, wixii shidde iyo dhib ku haysataa lagaaga dhaafaya. laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin falowlaa annahu kaana min almusabbixiina lalabita fii baطnihi ilaa yowmi yubcauun. wixii cidhiidhi laabta kaaga jira lagaaga dhaafaya. walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin. bale culammadu waxay leeyihin inshiraaxu sadriguu dalbaday nebi muuse waxay yidhaahdaan waa hamaratu tasbiix watasbiixu sababun liinshiraaxi sadri bay yidhaahdaan. qaala rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii markuu soo waday kay nusabbixaka kaiirantu waa cillo way u tahay bay yidhaahdaan. sidaa awgeed maadaamaynu bil cibaado ku jirno, caawana ay tahay habeenkaynu rajaynaynay arja leyla loo rajaynaya inay leylatulqadri tahay, habeen wardi iyo dikri iyo ilaahay xuskii ay tahay, qofka muslimkii uu badsado. adduunkaynu maanta ku loonnahayna cabsi iyo dhib iyo mushkilada ay ka taagantahy. afarteeda dacalbana muslim ooya iyo mid sakaraada iyo mid ilmaynaya iyo mid dhintay iyo mid la sii sida uu ka muuqdo. weliba intii ahlu xaqa sheeganaysay u badan ee ahlusunna waljamaaca ayay u badantahay inta maanta caalamka la kadeeday. in kuwii haystay baa kadeeday xukaamta u ahaa, inna kuwii gaaleed baa kadeeday, inna ahlu bidac gaale u soo raacday baa kadeeday. isku wada daro waxaasoo kadeedina uu dunida taagan yahay. ciddii wax iska dhicin karaysaa waa iska dhicin. inta kale waxay ku bogsoon oo laabtooda ilaahay ku shaafinaya subxaanahu wa tacaala inaad tidhaahdo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim. wsala allahuma calaa muxamadi wcala alihi wsaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin. ilaahayna qur-aanka wuxuu inagu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha dikran kaiira. dikran kaiira 10 meelood bay qur-aanka kaga soo aroortay. kaiiran un ilaahay daba wado. yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha maaha qura ilaahay intuu yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha wadkuruu llaha inta la yidhi ayaa kaiiran daba taalla. wasabbixuuhu bukratan waasiila baa ilaahay yidhi. ilaahay xus tiro badan leh. wasabbixuuhu bukratan waasiila. subxaanaka allahuma bixamdik walaa ilaaha illaa anta nastaqfiruka wanatuubu ilayk. wsala allahuma calaa muxamadi wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin.